Aasiya waa dad qani ku ah dhaqanka iyo kheyraadka. Bariga Aasiya waxa ay horumartay tan iyo dhammaadkii dagaalkii Vietnam. Waqooyi Bari Aasiya waxay ku soo baraarugtay ilaa dhammaadkii dagaalkii Kuuriya. Hab u muuqda mid aan la qiyaasi karin marka aad ka fikirto taariikhda nuskii hore ee qarniga. Taxanaheena waxa uu quseeyaa dhaqdhaqaaqyada la xiriira Asia oo in dhaweydba hadalhayntu ay aad u xoogeysanaysay. Mowduucan waanu dhowr qeybood oo kala gedisan ku eegi doonaa. Waxa uu dabcan ciwaankiisu noqonayaa Shiinuhu ma ku duuli doonaa Taiwan guga kan 2022 dhexdiisa. Ma muuqdaan ifafaalooyin sahanka siyaasadeed ee Beijing banaanka keeni karaya. Maraykanka iyo xulafadiisu dareen togan ma ka qabaan dhaqdhaqaaqa Shiinaha. Arrimahaas iyo weydiimo badan oo taagan ayaanu ku lafaguri doonaa baahinteena haddii eeba laga helo. Waayo jooga siyaasadda saadaaliya sanado badan waxa ay qabaan inay dhab tahay duulaanka Shiinaha ee Taiwan, waliba marka la suureeyo suurtagalnimada kadib ciyaaraha Olombikada jiilaalka. Waxaa laga yaabaa in malaha maya waxay u badan tahay inay fududahay in la saadaaliyo cidda ku guuleysan doonta awoodatan hadiiba la saadaaliyo goorta uu dhici karayo iyo sida Shiinuhu u dhaqaaqi doono ama ugu dhaqaaqi doono Taiwan. Laakiin marka dhinaca kale laga eego waa sax, khatartu waa jirtaa, dareenku waa mid muuqda. Taiwan duulaan baa ku wajahan. Beijing dhaqdhaqaaq aysan cidna xaqiri karaynin bay in dhaweyd abaabul iyo isku dabarid ballaaranba ku waday. Ciidanka xoreynta dadka ee magacooda loo soo gaabiyo PLA waxay haystaan qalab, hub, shaqaale iyo karti ay ku qaadaan weerar ka dhanka ah gacanka Taiwan. Waxay qorsheeyeen 10 sano, waxaana laga yaabaa inay u maleynayaan inay guuleysan karaan marka ay fiiriyeen istiraatiijiyadda dagaalgalkooda, iyagoo ka baaraan degay qorshaha abaabul ee Taiwan gudaheeda iyo sahanka taageero ee dibadda uga imaan karaya. Jabhadda xoreynta dadka ee PLA waxaa laga yaabaa inaysan u samayn sida ciidamada Maraykanka u samayn lahaayeen, laakiin Shiinuhu wuxuu sameeyaa waxyaabo badan oo ka duwan kan Maraykanka, waxayna inta badan si fiican u qabtaan dhaqdhaqaaq kasta, hanaan kasta oo howlgal iyo halbeeg kasta oo la hubiyay. Si kastaba ha ahaatee, khubaradu waxay qabaan inaanay samayn doonin ugu yaraan ma aha weerar dhan walba ah si ay u qabsadaan Taiwan. Waxaa laga yaabaa inay sameeyaan wax ka xishood badan oo weli bahdilaya Maraykanka oo qof walba ka gilgila kalsoonida awoodda iyo ilaalinta Maraykanka. Isla mar ahaantaana waxay muujinaysaa in Shiinuhu uu yahay awoodda military ee ugu weyn gobolka. Ma aha ugu yaraan sababtoo ah rabitaankeeda ay u leedahay inay dabcan isticmaasho xoog, xeelad iyo maquunin qoto dheerba. Haddii dhammaan Beijing ay ku guuleysato muddada gaaban, waxay si cad u soo jiidanaysaa Maraykanka ee badweynta Pacifiga. Waxay aad ugu fogaanaysaa inay u guurto tijaabada xigta ee u keenaysa Taiwan cidhibta iyo xukunka gobolka. Tani waa waxa uu Vladimir Putin ku sameynaya madaxweyne Biden iyo reer Yurub. Ceebaynta Maraykanka, muujinta daciifnimada iyo beeridda shakiga, waxaana uu ka faa'iideysanayaa isbahaysiga NATO oo muddo kadib ballaarin kara iyada oo la adeegsanayo hanjabaado military, cadaadis dhaqaale iyo qaran dumis oo ay suurtagal tahay in ay keento kala qaybsanaan ama hoos u dhac ku yimaada NATO lafteeda. Beijing shaki kuma jiro inay qaadanayso qoraallo ka turjumaya siyaasadeeda, taabagelinaya hadafyadeeda, tilmaamaya yadidiladeeda, qeexaya qorshayaasheeda saldhig ee u ah hagaajinta guud ahaan xuduudda China oo ah mid midaysan.